gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka mudane Faysal Cali Waraabe ayaa saaka ku soo guriyo noqday dalkiisa hooyo waxaanu la hadlay warfidiyeenka waxaanu sheegay in xaaladda dalka Soomaaliland ay ka sii darayso marba marka ka sii dambaysa isla markaasina labada xisbi macaarid maalinta Sabtida ah ay soo saari doonaan go'aano isla markaasina ay shacabka uga warrami doonaan xaaladda wadanku halka ay marayso iyo siyaasadda arrimaha dibadda oo muddooyinkii u dambeeyay si weyn shacabka Soomaaliland isha ugu hayeen waa sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka mudane Faysal Cali Waraabe isagoo oo arrimahaasi ka hadlayana waxa kamid ahaa hadaladiisii maanta war badan idin siin maayo dalka maanta halku marayo marxalad aan islahayn weligii yaalihiin dalku uu mari doonaa qiimaha dalku maraya gudiyo dibadba warwar weyn baa dadka umaddeena haysta shacbigeeni allah insha allahu tacaala sabtida in labada xusbi aanu wada fadhiisano xaaladda dalku marayo inaanu go-aamo ka soo saarno xog taanu hayno aan la wadaagnan jecel insha allah shacbi weynaha reer Somaliland marka maanta intaas baan isku dhamaysanaynaa sabtana insha allah tacaala aanu qaraar laba xusbi waxaan labada fulineed ay shiraan xusbigu arrimaha gudaha iyo dibadda dhaqaalaha nabadgelyada wadanku halku marayo maanta aanu insha allahu tacaala aanu ka soo saari doonaa go-aamo aan jecelahay inaan umadayda baraarujino aanu update gareyno halku dalku marayo ayaan sheegnay markaan saasaan ka dhigan doonaa insha allahu tacaala waa Mustafa Axmed Samakaab telefishinka caalamiga ah ee Rabat TV magaalada Hargeysa.